waxa la yiraahdaa waa kii waalidkeen ee waaray isteed carruur lagu dhalay ee wuxuu dhibaato soo maroo dhan loo dulqaatay inanteenu marka la guursanayo waxay u aragtaa guurka wax dan waa inanka oo kaliyaata uma haysto waxaan u feedhanayaan u diyaar u ahay waa inan rag marka yaa macshar shaab man sadaa minkum baa fariis sawirta fayna qadal basari faa'iideen badan buu guurku leeyahay gurigii kullama buniya ala fasid fa huwa fasid labada qof oo si fudud si ama si degdeg ah isu guursada ayaa keena furniinka toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa qiimaha guurka oo hadda sare u kacay iyo waliba burburka qoyska oo xiliyadan dambe aad u tira batay Ethiopia iyo Somaliland iyo Djibouti ayaan daraasadeeda saddexdaba ka wada sameeyay aniga dhalay 10 hablood marka suuqan ugu jira lafteedu xaqana marketing baan ka wadaa oo guurku hadduu bato de kuwaygii baa suuq ayaga laftooda ka qayb galaya reerna laguma dhiso lacag laguma dhisiyo adduun waxa lagu dhisaa fikir iyo dadaal iyo maxaan ku tacab lagu dhisaa facebookan iyo technology-da lagu jira waxay keenay dadkii si kala fogeeyaan oo waxa laga arkayaa dhaqamada shisheeye la arkaya guurarka wadamada jaarka la arkaya iminka sinadii maxaan ku dhahaayay iyo maxaan ku dhahay galmadii xaaraan tahay markaad maxaan ku dhahaayay u baahan tahay iyadu waxay noqonaysaa wax fudud waxaan isleeyahay raggu kuma baqaan gaadho 30 wax ka yar waa 30 iyo wax ka sareeya raggu u qaan gaadha tusaalahaan inan bay la sheekaystaan inantaasay muddo la soconayaan 4 sano 5 sano la soconaya habeenba meel baa laga soo caweynaya hotel heel baa la tagaya laakiin maalinka uu dhaqaalihiisii uu ku guursan lahaa uu helo wuxuu doonayaa mid kale maxaajabadan guriga weliga ka soo bixin inuu guursado maxaa arrintaas u sababa tayo gabadha ninku uu la sheekaysanay 5 sanadood buu u arkay 5 sano inay iyada ka go'an tahay waqti ahaan laakiin isagu waqtigiisa ma xisaabinayo aqoonta maadigii waxay abuurtay fuleynimo dhinac walba ganacsiga waxay abuurtay fuleynimo guurka waxay abuurtay fuleynimo social media waxay ka daawadeen waliba dumarku nolol khiyaaliya oo dad kale ku nool yihiin kuwaas ay jecelaystaan yiraahdaan ninkaygu inuu romantic noqdaan doonaya ninkaygu inuu nolosha igu nooleysiyay doonaya haddii laakiin tad meel isugu geyso bakeeriga jabay hooyadana la xajalo u aragto gabadhan inay iyadu leedahay u aragto ma khilaaf ka bilaabmaya